deegaankii hore maaragtay ilaa maanta jooga doorashadaasi ma ahayn qabiil oqoonna looma lahayn doorashadaasi waxay ahayd xusbinimo loo tartamay qabiilnimo looma tartamay markii la tartamay xubnihii u horeeyay adigu markii foodkii dhamaaday waxa lagu celiyay dawladda iyo la wareegtay arrinkii intii soo baxay intii ninkuu ka yar cilmi badnaa xagga dambe ee baqti sugaha iyo ligayo waliba ka sii dambeeya ligay inta ogol hadalka ee wax fahmayn ee wax qabanayn ee maxay dadii xaqiiqada laga sheegay runta ee aan wax qabanayn ee iyagu de magaca yar yada adigu dantooda u fuleeda kuwaas laga dhigay deegaanka kuwa qool lama geyn dawladana ka mas'uulahay qabiil lama garanayno dadku qabiilnimo kuma dooran xusbi istabayaa waxa iyagu intii ay yiraahdeen way naafacayaan oo waa yaasmaan oo in yaalayaan taawan bay gurteen xaqiiqadu waa taa oo xagga hore la soo maray ragii wankii tuugay yimid xagga dambe ee aqoonta lahaa ee wax kala garanay taas ay dawladda ka mas'uulay dambigaada dawladda qabtay oo yar aan ku dar waxa weeyaan doorashadii hore dawladda hoos حسب جمركم إساساج حسب جمركم البلابي حسب قبيل بوجو بلامو ريه بالبوجو نبى إسكالها كوكلا محدنا قبيل كان كلا كشوا جنة أما ديما كوها أما سلا صقلوها أنا مركوا كتير برجع ورا دور شوين كان واحد بدل ما أنا مركا إسلا حويانك واحد كقدرت مركا أنا قم أنا جرين نيس كلا ريسين لكن راكو قاد بنوقف فردور جناي واحد جرتين ليس كلام مركز أو قرني هواكي وصارسة قف شرادة يقرن مركز أنا وفنسين ونهانتي ساسنجين له تكلوا واحد محدا قف قبيل كبدن له غير كذا ترى بدن اللي يهبا لسومر سنة حتى السعود بدن وغيره مركز سنة بقبيل وجماعة مقنعين كستو نقدر حسنا سياستك لكن قبيل قو حاول يقول ويلا لو بس كل شيء يقولون horta laba isku dhaqmaa doorashada xubnaha deegaan kolka hore xisbigu baa soo xisbigu kuma keenin aqoon khibrad qofka uu leeyahay de kuma keenin sida ma muuqata laakiin wuxuu yar iska irsanayay in uu qofku ay tahay awoodda oo meesha ku imanayay waji qabiil intee uu tira keeni karaa isagoo hore ma sheegay لكن مجرد عقول قفكني محو تاري كرا مركب برشة محو تاري كرا هدو إلى برشة هدو تو يو كوا يو ثلنا يعني كرات كوا حكو تاري كرا انتو اللي أجي يعني لما قيميني لكن على قيمي قول ده وكسب شيء مو بلا قيمي يا عاد كنتو كين كريه صام بلو كيني يو حسبه سومال هذا ويس وده سعرين marka inta badan sida dadku ay kala waajiyeen qabiilka mas'uuliyadda ugu dambeynta waxa leh xisbiga waayo qof qolow noqon kara laakiin shaqada oo xulida waxa lahaa xisbiga lahaa oo xulida xisbiga lahaa xisbiguna wuxuu eegayay sida uu u taageersan yahay qofku xisbiga ee uma eegaymin maxay hayday wax qabadka iyo aqoontiisa iyo dadnimadiisa si heerka ma sii raacay xisbigu dantiisa uunbu qofkan uunbu eegayay inta awoodiisu ay taageerada haddii uu ninkani anu aad daacad xisbiga uga ahayn aqoon kasta alaadee lama qaadin kacaanimadiisu baa la eegayay macnaa unbay ahayd laakiin tolkiisa waxa laga eegayay oo keliya muhiimadda uu leeyahay xisbi si ay u dadku kala saaraan doorashada socodkeeduna caqabad weyn baa soo galaya taasoo inta qofku eegayo qofku doonayay la raadinayo de 300 oo ka dhex eegayo qofku doonayay calaamadiisa ama miyo ha noqoto ama dumarka haweenka waaweyn ha noqoto ama ragga waaweyn waxna qori kan waxna akhri kan ha noqoto caqabada weyn taasay noqonaysaa talabaad oo dal soo wada goostay maanta 387 qof nin waliba muraaqib uu rabaa inuu keensado meesha waxa isku imanaya inta in leeg baan isku imanaysa meeshii goobtii doorashada
waxaa imanaysa wasaaraddii arrimaha gudaha tii cadaaladda xisbiyadii meel la kala fadhiisto oo qaadaysaba ma jirto dadkiina waxay soo goosteen maanta nin waliba wuxuu leeyahay dee reer ma qaybsamayo qofkii karti maanta laguma dooran karayo waa reer waxaa lagu dooranayaa intaasoo qof markay soo sharaxaan marka haddii aan laga hortegin dhibaato weyn oo dhinaca nabadgelyada ah iyaa soo baxaysa in nabadgelyadu halis gasho oo la isku dhaco beelo isku dhacaan ama xisbiyadu wasalaamu calaykum